sool imika dadkeedii waxay leeyihiin Somaliland ma rabno oo ciidanka hadda waa ka soo baxay dadkii Somaliland sidee bay sool dib ugu noqon kartaa waxaan dagaal maaha waayo dagaal waa la soo maray maatidii qaxday oo ay bukootay oo ay balanbashay oo maalintiiba 50,000 oo qof dhimanayeen ayaa la soo maray dagaal maaha kani markii hore waxay haydiyaan maatida iyo dadka la gaarin laakiin waa la arkay inaanay maati ahayn marka waxaan aaminsanahay anigu horta Somaliland waa inay soo taabato xadkeeda aniga waxa kala hay dambe dad baa doonaya in garowe la gaaro laakiin garowe aanu shaqo kuma leeyahay laakiin waxaan doonayaa xuduudda Somaliland in la istaago markaan wada hadal xildhibaan hore xaamud waxaad ka soo jeedaa koonfurta bariga Sanaag ee beelaha darafyada bariga maxaad isleedahay xal u noqon kara colaadda gobolka Sool sidii golihii halka lagu soo gaaray waxay ahayd isu tanaasul iyo isqancin Somaliland inaanay kala aarsan oo waxaynu halkaa kaga horreynay dadka laakiin hadda haddii dagaal kale la abaabulo waxaan u maleynayaa Somaliland dib dambe isugu soo noqon mayso laakiin anagu waxaan qabnaa wanaag in wax lagu baadi doono xildhibaan xaamud wuxuu sheegay in arrintan nabad lagu soo dabaalo oo wada hadal arrinta xildhibaanka maxaad sidee kula muuqato horta xildhibaanka abtagay ilaahay ha shafree wuxuu ka soo jeedaa sanadii guud ee Somaliland wani warsageliya sanadii guud ee Somaliland waa Suldaan Saciid baa yaa hogaaba horta karaameen ma waxaan leenahay waa sax waxaad qabtay abti ayaa horta meesha ka muuqda abti horta wax fahamkan waa qaali meesha dawlad baa maamuleysay inagu shacabkeena shuqul kuma lahayn dawladdaana hawsha u taal markii uu lahaa garaadku kala dagaalka markaas soo hadalku deeyay in hal lagu qabto marka waxaan aaminsanahay xuduudda la soo xidho dal kasta ana marka Itoobiya laga soo gooyay dalka Soomaaliya haysato markaas Somaliland la sacano sii deyn karta markii la leeynayay dadka shacabka ay raydka lagu dhaxleynayay gobolka dhexdiisa in ay dawladdu gacan ka geysato oo ay soo qabato qof dilay oo qofkii la haynin waa khalad meeshan waa xuduud juqraafi iyo siyaasi way laba doodood ba markaa iska hormaray doodi waxa weeye dooda inagu rumaysanahay oo sovereignty oo ah dal baanu nahay ka xoroobay Ingiriis 60kii doodaasi waa dood siyaasi ah dooda kale waa dood isir dooda dhinaca kale taale ee ilaa Puntland taxani waa isir oo waxa la leeyahay anagu isku isir baan nahay maadaama aanu isku isir nahay waa inaanu isku maamul goboleed wada yeelana dhul baahanta reer ahaan maanta meel dhixu ka lusha Soomaaliyana maaha Somaliland maaha Soomaaliya inuu noqdo waxa hortaagan dastuurka Soomaaliya inuu maamul goboleed noqdo dastuurka Soomaaliya hortaagan Somaliland waa diiday Puntland ma noqon karo sida awgeed meel dhaxay ka laalaadaan had dood bay markaa tahay in inta qoriga la dhigo dood cusub la bilaabo oo la yiraahdo war maxaynu ku kala tagnaa darad waxaynu ogeyn Tigray oo iyaguna 10,000 in ka badan gacanta ku dhigay oo ciidankii tababarnaa ee Tigrayga ahaa taamay keenin in gorgortan laga galo jiritaanka Ethiopia may keenin in la isweydiiyo Ethiopia ma jiraysaa mise jirmayso marnaba cidda hoggaanka haysaa waxay ku khasban tahay qarankan amaana loogu dhiibay in loogu yimaado oo aanay gorgortan iyo hadal jiritaanka Soomaaliland iyo xuduudaheeda aan marnaba laga gelin qofka taa ku fikirana habeen ma jiro waxa kaliya loo baahan waxa weeye markaynu dalkeena sugno xuduudihiisa sax waanu ku xuduudda dhexdeeda wada hadal baa loo goliyaa wax walba oo lagu wada hadlana ha lagu heshiiyo laakiin inta ka horeysa xuduuddaasi waa waajib qaran haddaanu leenahay kuwii intaa gaarsiiyey ha la helo toban jirka sool jooga shan jirka sool jooga waxa ku qufulan inuu istaaqlaynayo shan jirka halkan joogana waxa ku qufulan ya inuu daarad laayay oo ay diyaarad halka u taalo oo ay kaar halka u yaalo waxa weeyaan waxaas way dhamaadeen waxa loo baahan yahay dadkan yar iyo maatidan odayaashan waaweyn way soo halgameen wixii ay wateen ba iyagu maanta de way maadartay soo dhameeyeen waan ku faraxsanahay in ay islam timid mujaahid baan ahaa aniga ayaan kula hadlaya waxaan ku ahaa 9 jir baan ahaa markaan islamta arko iyo nimanka boorarka sidee boosashka sida heesan qaadi jirnay aan shacabka tumay intaan daba yaacno dhaqaajiya dhiig qof aan beerson aan islam ahayn oo durriyadii mu jirin maalmo waxaan ka sheekeynaa mujaahidiin marka sheekeynaa maalmo waxaan ka sheekeynaa waxaan loo joogay marka sheekeynaa dadna waxa iska hor imanaya aragtidii dadkeen doonayeen isku hayno raad walda kulma ahayn mujaahid kulma ahayn hal nin ba kaaga jiray maanta qoladan ereynana qofba ka beeranay
maalmo marka taariikhda Soomaaliland ku qorto tiraado SNM baa halka cartay SNM baa ka martay why Soomaaliland wada leeyahay halka ka imanaysa abijaydi waxaan filayaa in mikrofon ka adeen horta SNM waad ku suurta gelisay maanta intaad halka fadhiisatay inaad waxa doonto tiraahdo dad waxaan filayaa ma jirtay meeshan fikir baa qof walba fikir soo jeedinaya fikir waxa weeye fikirkaaga caafimaad qaba soo jeedi laakiin SNM in la xagxagta had iyo jeer waxa weeyaan kuma jirin ba in cid gaar ah la taageeyo cid gaar ah la taago dawladda la dhaleeceeyo laakiin halkeenu muxuu ahaa Somaliland la saacanood sidee xalka ugu noqon lahayd sidee xalkan hadda taagan waniga kule waxa artiya kul fog waxa kamid ah in leedahay wax wada hadal lagu ma dhameyn karo wada hadal ma shinan ooli anna waxaan aaminsanahay meeshii in hadii la turxo marka loo turxo bixi lahaa in lagu dhameyn karay haywan challenge ma oran hadal lagu ma dhameyn karo wariyay anu jabhad baana ma fahanto waan ka horeeyo waan ka dambeeya qarankan wax badan baan gashaday hay hoos dhigin anu ma oran anu waxaan idhi marka huwanta Somaliland ku soo duushay laga saaro ee dadkaasi ay gooni u noqdaan iyagu waxay xor yihiin markaas wada hadal iman kara reer Sool oo dhan qofkii ogii qofkaan ogeynba waxa weeyaan qodobka ugu weyn ee ka dagaalamayeen maaha hebel baa la dilay maaha hal doorkayga la laynaya maaha waxaasaan doonaynaa laakiin sababtu waxa weeyaan ugu weyn ee ka dagaalamay reer Sool anigu aan aaminsanay shakhsiyan inay tahay shalay toole waxa diidan inuu siyaad baraydan maamulo anaguna ma doonayno maanta inuu maamulayno musabix xuduudii qofkii hadduu ku yidhi iiga bax deegaankaygii uu leeyahay meeshii maxaa dee inaad uga baxda weeyaan baryad wax ku leedahay qofkii haddaanad baryayn aanad dee baryo ku soo jiidanaynin dagaal waxba kuma qaban kartid xuduudooda waa la wada leeyahay Ethiopia Soomaali badan baa wax leh oo Somaliland ka soo jeeda Soomaali kalena ka soo jeeda Kenya sidoo kale xadaan la wada wadaagaa Somaliland xadkeeda iyo xayndaabkeeda maxaa xaaraan ka dhigay inuu dhulbahante beelaha dhexe uu wax la yeesho shalay bay isaga ku darsaday xabadu waxa iyagu goyso odayaashii bilaabay bay leeyeen annaguna waxay noo jartaan u leena eeg siyaasadda lagu sheegaya gabigeeduba wadad isku hayn way ma garanaysaa nin wala sabtaa nin wala la dagaalama nin wala ma garanaysaa liiska laalusha marka haddaan qofku amba dawladdu aanay marka isku hayn aanay yeelanin dadkii aan isku soo dhaweeynin dadku way kala fidhanayaan marka waxaan oran lahaa taa arintaas waxaan oran lahaa maanta soo laguma keeni karo xabad iyo xoog midna laguma keeni karo horta dadka bilaadanka waxa qanciya waa cadaalad bilaadanku haddii cadaalad waayaan labada walaalaha baan wada socon karin wada noolaan karin waxa loo baahan yahay oo dalkan iyo ummadani dhaqi kara oo beel dhaxiya beel shishaba ismidayn kara waa inay helaan dadku cadaalad ku filan waa in nabad lagu soo dabaalo wixii dhacay wada hadal lagu dhameeyo dhinac walba siyaasiyiintooda iyo waxgaradkooda iyo cuqaashoodu ay u gurmadaan oo labada dhinacba wada hadal la isugu yimaado taasana anu rayga ku soo koobaya dadku inaga wada dhinteen una inagu bay dhibaato inagu wada dhacday marka xuduudda intaynu sugno oo ciidamada garab istaagno inaynu xal ka raadino December waxa ka bilaabmayay diiwaangelintii maxaa colaadda ku soo hagaajiyay su'aal isweydiin laba January 2023 waxa bilaabmayay ciidamada Mareykanku inay berberay maadaan ay dhoolato sameeyaan waxaas oo excellent maxaa keenay maxaa shirarkii keenay imika waxaynu garanaa shirkii garaadooda qabsadeen wuxuu dhacay December 15keedii 26 Decemberna Allah yarxam waxa la dilay hadraawi ruuxana dhacdooyina waxay u baahan yihiin la baaro waxa la qaybiyay xadadkan oo la qaybsay wadamadan Afrika la qaybiyay 1804 kiiba xadkaas ma guurayo waligiin ma guurayo halkaas oo ahaanaya wax isbedelayana ma jiro haddii magaceeda la galiyo qof dhulmahaanta oo halka degani kama tafiir go'ayo kamana baxayo ilaa inta uu aaminsan yahay in dadkiisa ay Soomaaliland lays cadawga dibadda ee intaas oo dhan hadli kari waayay intaas oo dhan guuleysan kari waayay intaas oo dhan wax oran kari waayay in chance ka siinay inaga dhexdeena siinay markii buuraha isku fulnay inaga siinay markii inagii aan isku caynay nidaamkii SNM iyo gudaheeni inaga sameynay marka maadaama inagu aan sameynay inaga dhexdeena inaan isku noqon IBS Bank bangi caalami ah oo ku keenay adeegyo caalami ah ayaa markii ugu horeysay lagaaga furay Somaliland kaasoo aad ka heli karto adeegyo bangi oo dhammaystiran adeegyada IBS Bank aad ka helaysana waxa kamid ah furista akoonnada bangiga IBS Bank aad ka furan kartana waxa kamid ah individual account shakhsi business account ganacsi labadaasi qaybood ayaa waxay kala yihiin laba nooc oo account ah oo aad ka heli karto IBS Bank qaybta koowaad ee accountadu waxay yihiin accountada lacagta aad ku shuban karto isla markaasina sida dhow aad u maamulan karto current account iyo qaybta labaad oo ah saving account waa account aad lacagtaada ku kaydsan karto Visa and Mastercard IBS Bank
waxa uu ku hayaa kaarar caalami ah oo aad kala bixi kartid lacagtaada adduunka meel kastoo aad tagtid sidoo kale aad ku isticmaali kartid internetka waxana aad kaga iibsan kartid IBS waxaad ka heli kartaa Mastercard iyo Visa card waana bangiga kaliya ee bixiya adeega Visa card guud ahaan dalka ku xidhnow IBS Bank goor kasta iyo goob kasta booqa xarunta kuugu dhow ee IBS Bank